dufadii afraad oo arday ayaa ka qalan jabisay jaamacadda bariga Afrika farceeda Buuhoodle waxaana xaflad meeqaamkeedu si weyn u sareeyo lagu qabtay ardaydani howlka shirarka iyo xafladaha ee jaamacadda bariga Afrika ee Buuhoodle waxaana xafladan lagu casumay madaxda ugu sareysa jaamacadda bariga Afrika oo kamid ahaa Professor Aadan Sheekh Doon Cali madaxweynaha jaamacadda bariga Afrika boorka sare jaamacadda bariga Afrika waxa garadka Buuhoodle iyo mas'uuliyiin aad u fara badan oo xafladan goob joog ahayd ugu horeyn madasha waxa ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda bariga Afrika farceeda Buuhoodle Dr. Cabdishaafi Axmed Cali oo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in arday tiradu ay gaarayso 143 arday ka qalan jabiyaan jaamacadda bariga Afrika xarunteeda Buuhoodle gaar ahaan kulliyadaha kala duwan ee jaamacaddaasi ay bixiso ardaydii ugu tirada badnayd ee ka qalan jabisay jaamacadda bariga Afrika Buuhoodle farcan aynu joogno وقيبها كلا دوان جامعة سديد قيبات بعد قرن شبينية أفر وديجري هو كلية عافماتك كلية كمبيوترك كلية الشريعة كلية بيزنس أدمنستريشنك أفر دبلوم بقرن شبينية واللغة العربية لغة إنجليزية بروجكت مانجمنت iyo IT oo information technology maanta waa maalin farxadeed ardaydaas waxaan ku dhiirigelinaynaa aqoonta ay barteen inay muujiyaan waxa halkan culimada iyo akhyaarta hadashayba ku celceliyeen tiro looga baahnaa tayaa loo baahan yahay maanta waa dafcadii afraad weeye saddex qolo ka horeysay baa jaamacadda bariga Afrika Buuhoodle ka qalin jabiyay tayadoodii iyo tiradoodiiba waa la arkay maanta haddaad magaalada Buuhoodle ku dhaqaaqdo xarun kasta oo muhiima oo Buuhoodle kamida waxaad ugu tagaysaa oo fadhiya ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda bariga Afrika Buuhoodle runtii waxaa farxad weyn oo ah inaan maanta ka soo qayb galno xafladatan sida wanaagsan loo soo diyaariyey oo lagu hambalyaynayo laguna soo dhaweynayo ardayda qalin jabisay waxay ku diyaaraysaa jaamacaddu inay xoogga saarto xagga tayada ardayda ugu sarreysay kulliyadaha laga qalin jabiyey oo baasha ka qaatay kulliyad kasta ardayga ugu sarreeya waxaa la siinayaa master lacag la'aana oo ahayd ardaydii qalin jabisay inaan u bogaadiyo inaan u ducayno waan ilaahay idin barakeeyo aqoonta barateena mid naftiina iyo ummaddiina iyo runtii ardaydaas baanu dhammaanteen isugu nimi inaanu maanta kala qayb galno farxadda waanu meel fog uga soo kicitinay wayna istaahilaan markaa waa inuu kuu keenaa noloshaada wax ka bedelaa garaadkaaga wax ka bedelaa garashadaada wax ka bedelaa aad hore u socota akhlaaqdaada wax ka bedelaa oo cilmigu waa akhlaaq cilmigu waa dhaqan cilmigu waa harumar cilmigu waa nuur ardayda dugsiyada sare ka baxday waxaan ku doorin lahaa in ay galaan oo ay wax ka bartaan jaamacadaha magaaladooda ku yaala iyagoo aan u tallaabin meelo kale oo markayna jaamacadaha kala talo caafimaad iyo kombiyuutar iyo maamul iyo maalin baan soo barannaaye war inaan dalkeenna aaminno baan ardayda kula talin lahaa ugu hambalyeenayaa mar kale ardayda ku fara adeegtay deegaanka inay meel ka aadin waalidiinta macallimiinta iyo maamulka iyaguna inta muxuu ahaayay hawsha soo gaarsiiyey dadka u dhabar adeegtay taxanaha waxbarasho digriga koowaad ee jaamacadda laga qalin jiray iyagana mahad ballaaran baan u mahadnaqayaa sideed kulliyadood inay maanta Buuhoodle ka baxaan 100 dugsi oo maanta waxa weeye primary ila education ay ka furan yihiin waxa weeye alxamdulilaahi rabbil caalamiin heer jaamacadeedna maanta ka qalin jabiyey iyagoo gurigoodii jooga oo canjeeradii hooyadooda saaga soo maray ilaahay mahadii weyn waxaynu ku koorinayaa midnimo marka ugu horeysa dhalinyaradina qalin jabisay ee wax baratay waxba lama dhaafo
ugu dambeyntiina jaamacadda bariga afrika ee buuhoodle ayaa tan iyo intii laga aasaasay madaqada deegaanka buuhoodle waxay dadaal xoogan ugu jirtay inay soo saarto arday badan kuwaas aqoontooda waxbarasho laga dareemayo guud ahaan deegaanka buuhoodle waxaana ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda bariga afrika ay haatan wax ka dhigaan dugsiyada sare jaamacadda iyo waliba macaahidda diiniga ku yaala gobolka waa cali cismaan ismaaciil dhagjar wararka telefishinka caalamiga ee Sam News magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn